جزاك الله خيرا. سؤال لحدنا اللحاد. السلام عليكم. صلاة الضحى لو يقان قرمي بلابتها. صلاة الضحى لو يقانه waxay bilaabataa marka ay qorraxdu soo baxdo wax yarna ay kor soo yarkacdo oo xadiidkii Amr ibn Absa ayaa wuxuu ku yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtiyada markuu ka hadlayay salaadaha aan la ogolayn in la tukado salaada subax marka tukato salaadoo dhan iska daa ilaa qorraxdu soo baxdo maxaa ku xiga markay soo baxdana wuxuu nabigu ku xujiyay sallallahu alayhi wasallam fa idar tafa'at qid rumhin fasalli markay dhalato korna u soo yara kacdo oo waran qiyaasti kor u soo kacdo marka waran qiyaasti wuxuu leeyahay culimadu waxay leeyihiin isha laga wadaa markaad fiiriso oo qiyaasta malaha wallahi qiyaas hal waran qadarkii way soo kacday sheekh ibn Uthaymeen wuxuu leeyahay waa hal mitir oo kale waa yey kor u soo yara kacday markaad isdhaahdo markaas aad tukan kartaa culimada sunnada sida sheekh ibn Baaz sheekh ibn Uthaymeen iyo culimada sunnadu waxay leeyihiin qiyaastaasi waxa lagu qiyaasaa shuruuqa markay qorraxdu soo baxdo 10 daqiiqo kadib ilaa 20 daqiiqo 15 20 daqiiqo 10 daqiiqo u yar waa inaad qorraxda shuruuqeeda soo bixideeda sugto ilaa 10 daqiiqo 10 daqiiqo wixii ka dambeeya qaar waxay leeyihiin 15 ilaa 20 la gaarsiiyaa fiican halka wixii ka dambeeya ayaa waxa jooga waqtigii salaada duxada ilaa laga gaarayo zawaalka qorraxdu ilaa bartamaha ay ka tagayso inta waa la tukan karaa xilligay ugu fadli badan tahayna waa xiina tarmadu alfisaal waa markay qorraxdu dhulka kululayso oo ay lacaga gubiyoodo oo muxuu ahay nirgaha iyo qurbaxyada yaryarka iyo markay ay yaani lugta markay dhulka saaraan ay ku caga gubiyoonayaan xilliga qorraxdu kululaato ayaa ugu fadli badan in la tukado wallahu a'lam.